digniin aad u culus oo aan kaga hadlayno dhalinyarada traderska ay doonayaan inay akoono ka furtaan shirkaddan Funded oo yacni shirkad Profama isla markaana bixisa akoono funded haddana soo kordhisay yacni modelkan cusub ay ugu magac dareen Stellar Instant oo toos akoon funded u qaado adiguna wax challenge samarin marka dhalinyaro ay la soo wadaagay hore muuqaalo badan baa uga sameeyay dhammaan akoonada Profamiska yacni waxaan kala jeedaa shirkadaha Profamiska ee akoonada funded ka bixiya waqti xaadirkan iyo systemka ay ku shaqeeyaan dhammaan kuwa ay Soomaalidu isticmaalaan ma aha shirkado waxa la yiraahdaa mataqaana qaabka ku shaqeeyaan uu yahay nidaam xalaal ama payout-ka iyo faa'iidada laga sameeyo qofkii baasiyaba akoon oo ku guuleysta qofkaas faa'iido uu ka sameeyo xalaal uma noqonayso cadeymo diinteena islaamka soo bandhigna waxaan ugu la yimid maahay culimadu waxay ka yiraahdeen way oo marjicina wax kasta oo la laabana waxaan xitaa idin ku xujeeyay haddii aad soo yeeli kartaan ama keeni kartaan hal sheekh oo islaam oo dhahaya shirkadana waa xalaal ilaa haddana su'aashaasi banaankaas ay taalo qofka insha Allah keenaya oo mataqaanaa sheekhaas inuu keenay si inuu uga faa'iideysano okay intaas kadib wixii aan sheegay waxaa ka mid ahaa in shirkadahan sidoo kale marka laga yimaado in akoonadan ay xaraan yihiin inay scammers yihiin oo ay doonayaan kaliya in personal business code uu profitable noqdo laakiin inay profitable trader soo saaraan ayna doonaynin mana awoodi karaan in wax way dhammaan dadkaas hadday profitable wada noqdaan inay payout-kooda ay bixiyaan awoodu ma laha sababtoo akoonadan waa deemo sidaan boqol mar ku soo celcelinay akoonadan waa deemo so that lacagta meel ay ka keenayaan ma jirto marka waa in dad badan akoonadooda la gubo waayo macnaha so that waxa faa'iidada ay ka bixiyaan waa akoono la gubay iyo mataqaanaa copy trading ay la sameeyeen inta wax way profit ka sameynaysa ee systemyoodu ay shaqeynayaan copy trading ay la sameeyeen marka ma bixin karaan payout-kaas so that waxay ku khasban yihiin in akoomo badan la gubo ama marka horeba akoonka loo dhisaan gareeyo sidii ay dadku mataqaanaa ugu hooban lahaayeen macnaha waa isla arki doonaa marka akoon ee sababta digniintan iyo muuqaalkan uu sameynayo ahaa noocan cusub modelkan Stellar Instant ee hadda soo kordhiyeen akoon funded hore ka qaado hore ka farxaysaa Soomaa waxa salaad hadda challenge waxa ma jiraan macluumaadkan si fiican u akhriso caqligaaga ka shaqeysii haddii real trader taa waxaan ka hadlayo dhan waa ogaan doontaa akoonada size-kooda waa kuwana 5k iyo 10k waxaan isku dayaynaa soo koobo iyo 20k kullu badankiina luqadana waa garanaysaan waan akhrisan kartaa laakiin waa baraarujin way iyo 20k mid kasta qiimihiisa waa arkaysaa $195 akoon 5k taa waxay ka dhigan tahay 5 akoon oo 5k oo Stellar Line lacagta ku gadan leed baa waxa ku gadanaysaa iyo waliba 6 akoon hal akoon oo 5k ku gadanaysaa fahmaysaa akoonka 10k waa $399 taasoo ka dhigan akoon 100k oo Stellar Line lacagta ku gadan leed baa ku gadanaysaa hal akoon oo 10k 20k-na waa $780 waaye sidaan gadaal ka arki doono lacagtaasi iyagu xitaa haddii akoonkaaga ka xiraan anytime intay sharci soo saaraan ay ka xiraan akoonkaaga lacagtan ma yacni request ma sameyn kartid in lacagtan lagu mataqaana la refund gareeyo ama dib lagu soo celiyo waana qodobka ugu dambeeya arkana toos bay kugu sheegeen hadda ku cadeeyeen refundable fee ma jiro wax lacag lagu soo celinayo so that maxay ka dhigan tahay xitaa haddaad adigu khalad sameyn oo iyagu ay cilada dhankooda ka imaato systemkooda ama automatically qodob ay soo saaraan dhammaan waxa way mataqaanaa khuseeyo saddexdan akoon kala duwanba dadka isticmaalaya modelkan Stellar Instant Soomaalida badanaa waxa ma akhrido kadibna qodobkii aad akhrinay akoonkiina gubtid salaamu calaykum way isteenaysan way macna wax lacag lagu soo celinay ma jirto taasoo ka dhigan xilliga ay doonayaan bay akoonkaaga si ku talagal u gubi karaan soo faham kadibna waxa lacag kuma aad yeelanaysa markasta ayaa ka gar lahaanay oo qodobka koowaad u baahan tahay inaad ogaatid qodobka labaad fiiri maximum loss-kiisu waa 300 akoonka 5k-ga kuwan kale taada ku apply garan doona mid kasta aad akhrisan doona laakiin kan inuu tusaale soo qaadanay akoon 5k oo maximum loss-kiisu yahay 6% imagine waan daily loss leen daily loss maxaa looga baahan yahay hadii maximum loss-ku yahay 6% maxaa daily loss looga baahan yahay marka daily loss-ki iyo ka yarba waxa u dhigma maximum loss-kaaga 300 kaliya way marka qof dhaafay baa ku trade garan kara way macna dhalinyartan wada emotion camera suuqa iskaga cusub waxa way challenge-yadii baasin la akoonkan oo kaleeto oo waliba challenge-yada lacag yar ay ka bixinayeen akoonkaana $195 qof Soomaaliya jooga ku soo galayso ognay akoon uu ka bixiyay 300 day loss-kiisu yahay meesha meel saalan ma aha si fiican iskaga fiiriyo waa meelaha lagu hooban doonay drawdown type-kuna waa trailing muxuu yahay wax symbol yani drawdown type-ka yani drawdown-ka wuxuu isla bedeli doonaa limitkiisu hadba growth-ka akoonkaaga haddii aad akoonkaaga tusaale -100 haddii aad ku jirtay waa akoon growth-ka aad +1% aad keentid 1%-gii isla bedelaya drawdown-ka isaguna upward ama increase uu sameynaa symbol saas laga wadaa trailing modelka newska waa ku trade garan kartaa taasi ma faa'iida 100% waa ognahay taasi waa khasaaro iyo meelaha keenaysa in lagu hoobto akoonadana si easily loo gubo wax macnaha ma sameynaysa news waa ku trade garan kartaa lagu yiraahdo okay weekend holding baa jira noo khuseeya anaga sababtoo ah anagu swing traders maneen waxa way trader kana waqtiga kooban baynu haysanaa kadibna aynu ku kala baxnaa soo daa wax anaga ma khuseeyaan
weekend holding si aha weekend holding waxa la yiraahdo si ahana waxa weeye ina open position sameysay weekend holding xitaa hadii aad tahay waxa weeye swing trader ma aha waxa weeye mataqaanaa wax ku caawinaya ma wax fiicanna ma profit spirit-ka 80% waa sida ku hore ku taqaaneen marka eligible criteria gaartid 80% waa xaq u yeelanaysaa qodobada ugu roon waxaa kamid ah labadan qodob isku xiga on demand payout-ka iyo consistency rule ma jiro bay ku leeyihiin sida shirkadaha kale on demand payout-kuna waxa instant profit baa samayn kartaa waa goorma haddii akoonnadan oo dhan 5% haddii aad ku dartid hadda akoonka 5k iyo 5% oo kale marka ku dartid I think 250 camal instant payout baa samayn kartaa isla hataa dalban kartaa instead of 14 days kadib ay sugayeen payout-ka laakiin wixii 5% ka yar withdrawal-kaaga wuxuu noqon doonaa every 14 days buu noqon doonaa ma fahanti marka horta waa kaasaa qodobada waa sida aynu kugu sharaxay oo arkaysaan wax haba yaraade refundable fee-gan waa midkii aan marka ugu horreysay sharaxa waa meesha ugu weyn ee lagu hooban doono marka dhan yar aad uga fiirsada shirkadahan already waa inay sheegay waa xaaraan dhanka kale haddii aan isba bardhigno 190 door maanta ninka real trader-ka hadduu akoon live oo ku shubto just market ama akoon kale intuu furto oo ku shubto kadibna aqoontiisu ay dhisan tahay waxa way mental qof u dhisan u yahay psychology qof u diyaarsan u yahay risk management iyo waxa uu isgaranay waxa uu faa'iideeyo balaankiisa wixii soo diyaarsan yihiin ay isugu bro maxaa ku dhahay ay isugu bro in 5k-gan adagoo ka pressure yar lacagta bishii ka sameyn lahayd ka badan ka sameyn karta 195 door oo akoon ku shubatay midaas isku ognaay nimankan yeesayna gaadanaya nimanka la midka ku dadaala waxa weeyna aqoontiina marka hore kor u qaadaan kadibna akoon live ah lacag ku shubatay lacagtaada aad korisid maalin kastana aad payout sameysay haddii aad khasaartidna khasaaray maalinka ugu tala gashay aad dhaafsiinin of trading skill waxyaabihii kale khayr badan baan rajeynaa